بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستاذ ما صلاة محمود برأميري سؤال بنوسو بعشرة دوسيسارة بيولوجي كيمستري فيزيكس أنا كلا صوتان أعلى channelska برأميري سو يهيل أكاديمي أونلاين 10 كمان 10 بيولوجي وشابتر كسدحات وفصل كتمانية اللعبات genetics 10 ده نحن مرأي بوق مقررة إن شاء الله وعندما لك 10 كان oo pages sidaad ka bilaabanayo ilaa chapterka dhamaadkiisa waxaan kusoo gudbiyey live marka liveki waxaa iskhilaafayo oo aan iswaafaqaynin codkii iyo waxa loo yaqaano qoraalkii arda badana marka soo dalbatay oo ugu dhaheen macna cashirka gooni usoo duub cashirka ugu horeeya live usoo gudbiso marka insha allah bismillah waxaan soo gudbin doonaa insha allah cashir qaab noocaasa channelskaasa kala socota waxaan soo kordhinay sanadkan cusub 18ka arda badanna aan ku marna si online ah markii laga tago social media youtube-kii freega ahaa healacademy.talentlms.com oo learning management service ah kaas ayaan macnaha online education oo qof kasta gooni u baranayo any course oo u baahdo ama any maado oo u baahdo maada advanced ama beginner ah haduu ku yahay iyo hadduu macnaha wax loo yaqaan dhexdhexaad ka rabo hada jaamacadda maado ku cuslaato ama high school maado ku cuslaato ama something maado kale skill ah oo u baahdo in maado ka heli kara website-kan gal course catalog waxaa lahayo oo koorsooyinka dooragal koorsooyinka fiiri koorsooyin tiro badan oo ku jira soo kala xulo mid aad rabtid hadduu ilaahay marka bacdina whatsapp ama wixii lamid ah nambarada ku qoran website-ka kala soo xiriir ama gmail-ka fariin usoo dir soo diiwaangeli sign up dhahdid waa lagu soo active garay doonaa markay qarashaadka waxyaabaha laga arbo lagu sheego saasayna koorsada ku bilaabo doonta insha allah waana free intii bila ah cashirkan waxaan ka bilaabanaa sida hore kugu sheegaba waa genetics chapterka saddexaad waa cashirka u dambeeyey buug dhan oo fanfoorka amaba si kala tan kugu dhigo biology-ga oo dhan hadduu ilaahay forman ilaa fanfoor qofkii marka heer ka sare u baahan biology-ga intaan soo gudbinay oo buugga aan ah oo aan dhameynay loo sii bilaabay insha allah diyaar waayo soo dhawaata inheritance of ABO blood group maanta waxaan qaadanayna habka la iskaga dhaxla ama la isku gudbiyo sifada ama astaanta nooca dhiigga oo dhallaanku yeelanayo sida waaridka ugu gudbiyo human being-ka waxay leeyihiin ABO blood group system la yiraahdo waa la iskala dhaxlaa inheritance waa sifa la kala dhaxli karo la isku gudbi karo taasoo transmitted from parent to offspring waaridka uu gudbi karo dhallaankiisa si ka duwan genetic trait kale oo aan soo sheegnay dhammaan soo marnay beer alleela waxa waaye TT kan laakiin waxa waaye tree alleela saddex gene oo ku lug leeyahay AB blood group-ka sida diraadid in case multiple alleelooyin tira badan waa alleelooyin kastoo aan mas-uuliyad ay ka yihiin ama keenaya oo mas-uulka presence-ga antigen-ka nooca red blood cell-ka laga helo antigen waa taqaanaa A iyo B jira ay antibody A iyo B marka nooca dhiigga laga helo red blood cell-ka antigen-ku xabaarsan yahay ayaa go-aaminaya bila-adan waran ka hadalna waxaa go-aamiyay saddex alleelo oo la kala yiraahdo A iyo B oo alleelo ah codominantina ah isku xiran iyo alleelo O oo recessive ayaga ku ah labadaba sheeqsane markasta la sheeqinayo halka labadooda sheeqay ka yihiin model fashion aan qaadayna habka isku dhex jiro caadiga ah AB blood group-ka waxaa loo yaqaano iyo genetic-kooda sawirka soo socda ayaana tusayo hidda tilmaamkooda waxaa loo yaqaan human blood group-ka habka aadanaha dhiiggiisa iyo dee genotype-kooda qaabka ayuu noqonaya this allele are transmitted from parent to offspring ayadoo meelo la isticmaalo habkan haddaa silsiladan fahanto waxaa kuu fududaanaysa inaan isku karoosano markasta waxaa loo yaqaano qaabka inta waxaa la yirahdaa blood groupka si kale waxaad dhihi kartaa phenotype-ka waxaa loo yaqaano waa hidamoojiskooda macnaha hidamoojia sifada muuqata genotype waxaan kusoo sheegin dib down physical appearance kusoo sheegin marka waa isku mid haddaan aanu nooca dhiigga A ama phenotype A sababto waxaan leenahay aaba nooca dhiiggiisa uu yahay A ama hooyo nooca dhiiggeeda uu yahay B ama aaba nooca dhiiggiisa uu yahay AB ama hooyo nooca dhiiggeeda uu yahay O sida daraad markaa saas dhaan waxaan sheegnay phenotype-ka sifa muujiyaha blood group-kina waa nooca dhiiggiiba genotype oo sifa tilmaamaha ah waa macnaha genetic made up waxa oo gene ahaan ka samaysan yahay intay ku qoran tahay antigen-kana waa kana nooca dhiiggu yahay
antigenka waxaan baara rig balancerka aan ku sheegay nooca dhiiga ee hiddamuujiskooda nooca hidda tilmaamkooda hadday homogeneous yahay ayaan u qaadan doonaa ilaa waxaa isku karoosi doono ma ahan phenotypeka waa genotypeka hadduu macnaha isku jaad yahay waxaan u qaadan doonaa homogeneous isku jaad yahay hadduu kala jaad yahay o ayaan u qaadan doonaa antigenka go-aamiyana waxaa la yihahdaa b phenotypekooda nooca dhiiga group b ah b waa hadduu isku jaad yahay b o na hadduu kala jaad yahay nooca antigenka go-aamiyana waa b noociisa go-aamiya b-ga genotypekooda waa b aan qaadan doonaa hadduu isku jaad yahay hadduu kala jaad yahay labadaba antigenkiisana waxaan qaadan doonaa ama b labada mid a go-aamiya labadaba u go-aamiya oo hadda antigenna kuma shaqey doono o kusoo haray genotypekooda waa o wax malahan antigen waxa la dhahayana malahan waa zero waxaan qaadan doonaa qaabka laisku karoosaa tusaale kooda insha allah silsiladaas aan markasta ku hagay adig inaad barato ku dhigto labada tusaale meesha noo saaran aan rabnaa inaan naxal solution noo qoray example of inheritance-ga habka la iskaga dhaxlo ama laisku gudbiyo nooca dhiiga the marriage between a man who blood group a nin nooca dhiigiisu yahay ayaa wuxuu guursaday hooyo nooca dhiigeedu uu yahay b caruurta dhala doonto dhan waa lagu sheegay waxay noqon doonaan laguna 4 nooc ay dhiiga waa haddii labada waarid ay kala jaad yihiin haddii ay isku jaad yihiin waa baraaweed doona haddii isku jaad yihiin laakiin haddii aabba nooca dhiigiisu yahay hooyo nooca dhiigeedu uu yahay b ay isguursadaan kala jaadna dhiigooda uu yahay labada waaridba waxay noqon doontaa 4 nooc ee dhiiga inuu kasoo baxo waa kana tusaalaha halkan barantiga waa meel oo ah eedan o maxaa loogu qaatay su-aasha inay isweytaa laga yaabaa waa kala jaad haye halkan sifadan waxay u taqaanaa female waa b o waana kala jaad labadaan is rabnaa inaan isku tallaalno inta parental genotype parental phenotype-ka xagga kugu qoran waxaa laga rabay man blood group a iyo man woman blood group b inta marka kale waxaa ku qoran kartaa group a group blood a iyo group blood b genotype-koodana waabtana homogeneous soo qaad eedan labadaaba ku dhaji dhinaca xigta eedaana qaadanay waa kana halkaan ka kaxinay b-dan kusoo dhejin a b the first one eeda haddana qaad o-da kusoo dheji a o eeda halkaasa ku dhameyna gameedkaa la sameeyey waad ujeeda halkaa imo haddana o-da qaad b-da kusoo dheji b o o-da haddana qaad o-da kusoo dheji fusion crossan sameyn wanad isku warna isticmaali karta dar maxaa sameyn hadda first one generation cunuga koowaad ama cunug kamida ilmaha waa a b nuuciisu mid kale waa a kan waa a b kana waa a kana waa b kana waa o waa kana hoos kuu sheegay the phenotype of children marka hiddamuujiska caruurta one a b ah one a ah one blood group a b ah one blood group a one blood group a b ah iyo one blood group o ah afartaas ayaa soo baxa ayaa labadooda kuwan soo baxa mid kastoo kamid ah waad isku karoosi oo isku sii karoosi kartaa halkaas waxaan umaleynaa inaad si fiican tusaalahaas u fahantay waana kala gedgedi kartaa insha allah tusaalaha waa number 2 a man who is homozygous for blood group a waa isla tusaale hadda waxaa laga bedelo oo keliya hetero ahaa kan homaa laga dhigay isku jaada laga dhigay kaas kala jaad ah ayaa wuxuu guursaday married to a woman who is homogeneous for blood group b blood group b iyo blood group a laba qof ayaa isguursatay labadana home ay yihiin caruurta ay dhali doonaan dhan waa lagu sheegay a b ay noqon doonaan parentiga waa meelku waa a blood group oo home ah ee aan qaadanay female kana waa b
oo homo a b b aan qaadan gametka labadan kala fuji haddaad rabto dhibkaan dheer hagelin labadan hal xaba kasoo qaado maadaama same yihiin labadan hal xaba kasoo qaado isku dhaji eeda waa la qaaday bda lagu dhejiyay a b eeda waa la qaaday haddana bda kale lagu dhejiyay a b eedan waa la qaaday bdan lagu dhejiyay a b eedan waa la qaaday bdan lagu korosay a b f1 generation inta waayo genotypeskoodana dhammaan waa 100% waa all a b waa nooca dhiigood waxaan filayaa inaad isku sii tallaali karto isku koroosi karto a iyo a b b iyo o nooc aad rabto inaad isku guuri karto ee waarid muhiimada ay noo leedahay inaan barano waxa loo yaqaano nooca dhiiga maxay tahay qaybtan ugu dambeysa intaanan knowledge-ka la xiriira blood group-ka habka la iskaga dhaxlo inaan kala barano waxay naga kaalmeyneysaa supportive evidence in courts maxkamadaha 24 saac dambiyada la isku qabsado waxay ku siinaysaa caddeyn caseska way parental are disputed markii waarid cunug ku murmaan anaa dhalay marka ku murmaan sidoo kale waxay faa'iido u leedahay faa'iido labaad dhiig isku shubid blood transfusion labada qodob ayay muhiim saaid ugu leedahay iyo meelo badan oo kala duwan insha allah exercise-ka chapter-ka oo dhan gadaal ku qoran laba u kala qaaday part 1 oo direct question ay part 2 oo solve problem oo genetic ah mas'aladan fiir kadibna xalli aaba iyo hooyo Roomaan ah iyo cunugoodii wuxuu ku si qalab ah isbitaalka ugu qaldoon sida daraadeed waxay qaadeen cunug qalad ah isbitaalka ilmi markii la dhalay waa la isku qalday labadaba aaba iyo hooyada Roomaanka nooca dhiigoodu waa blood group A cunuga ay qaateenna waa blood group O haddaba qeex sheegashada cunuga inay dhaleen iyo inaysan dhalin ayaa laga rabaa Roomaanku ma dhaleen cunugaas waxaa sameysaa genetic process adoo isticmaalaa Punnett square sharaxna jawaabtaada oo ku sii iftiiminaya waxaa ku sameysaa marna homo marna hetero labaduba waa sidaa daraadeed marna kala jaad isticmaal marna isku jaad isticmaal haddii kala jaad kugu soo baxdo nooca dhiiga O ama isku jaadka ay kugu soo baxdo nooca dhiiga O way dhaleen waa haddii ay labadaba kusoo bixi weysaan ma dhalin waxaan filayaa inaa fahantay mas'alooyin kaloo badan ay kala jiro laakiin mas'alada insha allah blood group-ka ka shaqeey cashirkan dib ugu laabanayna exercise-kan uu badan yahay waa 20 problem iyo su-aalo badan waxaan filayaa inay la socotay halkaas waxaan uga baxno nooca dhiigga buugga uu qoraya mas'alooyin badan oo sheegaya qaabka ugu kooban oo soo qabtay adigu si raac sidee la iskaga dhaxlaa positive-ka iyo negative-ka nooca dhiigga oo lagu magacaabo Hennes factor human being-ka waxay leeyihiin Hennes antigen max kaasoo ka dhigayo one positive inuu noqdo well absence of Hennes antigen max negative mar antigen haduu joogana waa positive haduu maqan yahana waa negative the presence of antigen ayaa go'aamiya ka antigen oo positive ka ah dominant waaye oo shayqiyo wuxuuna shayqina midku ka maqan antigen-ka nooca blood group-ka leh ee positive-ka wuxuu shayqinaa waxaa loo yaqaan nooca Hennes-ka ah sidaa daraadeed ma badna percentage-ka nooca Hennes iyo nooca plus-ka B plus iyo B minus A B plus iyo A minus ama O plus iyo A minus percentage-ka badan dominant maadaama uu yahay waxay noqonaysaa inuu badan yahay waxaa loo yaqaano nooca plus-ka sida caadiga okay cross waa ka heli kartaa isku sii cross adigu sii raadi nooca waxaan galaynaa sex determination lab iyo dhadig inaan yaa go-aamiyo yaa iskale ma aabaa go-aanka iskale wiil inuu dhasho mise hooyada waa muran badan oo soo jiray xagga culumaduna tafsiiriyeen sayniskana ee murmeen dhaqanka soomaalidana waa dareemaya inaad si fiican u taqaano hooyo markay dib ugu laabato dhaqankaadii hooyada gabdhaha bis dhasho aabayaashu macnaha aada bay u caban jireen oo ay dhihi jireen oo qumaya tahay iyo wixii lamid a sababto waxay aaminsanaa jireen inay ayadu xambaarsanta laakiin qarniyadan dhow waxaa la ogaaday nooca saksiga jinsiga dhala doona lab iyo dhadig wuxuu noqon doona inuu go-aan ku leeyahay aabaha
diinta islaamkana way ka hadashay sii baarbaar dhacdadaas ama mas'alada inkastoo welito ay muramo badan ka jiraan. Sex determinationka animalska oo sare waxaa controla specific pair chromosome. tusaale human hadaan soo qaadano 46 chromosome ayaa jira sidii 23 homogeneous chromosome oo dhamaanaha everybody cell laga helo. Geneska go-aamiya whether child becomes male or female hadduu cunuga ama dhalaanku lab iyo dhadig midka noqon doono waxaa laga helaa specific pair oo lagu magacaabo sex chromosomes which are two types X and Y chromosome named after their shape, kuwaasoo lagu magacaabo muuqaalka ama shayligooda. 22 kale ee haraadiga waxaa lagu magacaabo autosome, waxay mas-uuliyadkeeda kala dhaxashada sifooyin kale ee aan soo marnay. Human being-ka male-ku wuxuu leeyahay X and Y waa heterogametic kala chart, female-kuna XX leedahay waa homogametic isku chart combination. Meiosis-ka markay dhacdo waxaa loo yaqaano male spermatozoid wuxuu soo degi karaa oo kaliya X ama Y kaliya ayuu xambaari karaa, halka female-ku markasta ay ka kooban tahay waxa ay soo deynaysa X oo kaliya. The sex jinsiga cunuga noqonayo lab iyo dhadig mad chance of depend on whether spermatozoa waxay ku xiran tahay ku tiirsan tahay spermatozoa ayaa iskale fadfaada abaaska that fertilize the ovum kaasoo bacriminayo ukunta carries X or Y inuu xambaarsan X ama Y go-aanka isaga iskale warku waa qeexayn maadaama abo X Y heedro iyo hooyadan XX tahay waxaad taqaanaa hoomada markaste labada xaraf hadday soo wada deyso hadday hal xaba soo deyso X Y hal xaba markasta la soo deeno hooyadu markasta ovumkeed hal xaba xambaarsanta aboon X ama Y xambaarsan janiska uu kusoo deegi karo marna X uu kusoo saari karo spermatozoid soo xambaari karo marna Y uu kusoo xambaari karo. Janis wuxuu ku aaminayaa oo aabaha inuu macnaha markasta X ta aabuu soo daayo haddii X ta hooyada oo iska joogta ee la falgasho waa gabar, haddii Y aaba markaan soo deysto oo X ta hooyada ee la falgashana waa wiil. qaabka waaye waa loo yaqaan waa kana barantiga waa male iyo female. Genotype-kooda ilmaamkoodana waa X iyo Y hadday female tahay, XX-na hadday cafwan XY hadduu male yahay, XX-na hadday female tahay. kala qaad waa kana mar kasta X iyo Y aabuu soo deyna halkan hal X la iska taagan. X-tan qaado X-ta kale ku dhaji waa gaal, haddana X-ta qaad X-ta kale isku dhaji waa gaal, two girls of spring. Y-da qaad X-tan ku dhaji XY ayada qaadana inta ku dhaji inta wax loo yaqaano two boys. ilmaha dhala doona probability horta wiil iyo gabar waxay noqon doonaa waa 50-50 ratio waa 1-1 oo 50-50 ah, laakiin wiil ma dhala doona mise gabar ma dhala doonto waxaa go-aamiya aabaha. xayawaanaad kale markaan fiirino male-ka homogametic ayuu noqdaa halka female-ka heterogametic uu noqdo. Human-ka ayay khilaafaan. baariska tusaale markaan soo qaadana male-kooda waa XX waa homo halka female-kooda uu ka noqdo hetero. Subsexes markaan soo qaadano male-kooda female-kooda XX noqdo waa bini'aadamka la mid yihiin halka male-ka uu ka yahay XO oo Y-da kuma jirta waa maqan tahay. Fruit fly-ga uguna dhow aadanaha asagoo sex determination tusaalaha aadanaha ugu dhow la soo qaato buugan wax badan tusaale soo qaadana male-kiisu waa XY halka female-kiisu XX ka tahay oo bini'aadamka ayuu la mid yahay. Sex linkage ama linkage waxyaabaha go-aamiya isku xira jiinka isku xira ama kala dhaxlo. Linkage wax kala maahan maadaama number badan oo dabeecadaha ay jireen ay maamulaan different genes kala duwan ugu waca number of gene chromosome oo aynu 46 ah. Gene kasta ma lahaan karo ama meeli karo own chromosome-kiisa, sida daraadeed chromosome kasta waxaa qasab ku ah different genes in kala controlaan. tusaale soo qaadana gene located only 23 pair of chromosome 23 beer oo chromosome ayaa thousands of genes ka jira maamula dabeecadaha thousands ka jira ee human being. those genes kas marka found the same chromosome waxaa laga heli karaa chromosomes isku mid ah link way isku xiran yihiin. all link genes-na waxaa lagu beddeshaa ama lagu magacaabo linkage group isku xiran. link genes-kaas waa la kala dhaxli karaa, therefore do not segregate ma kala baxaan ma kala hayaamaan dhantaal ma jiro marka lagu yiro meiosis-ka. sidaa daraadeed waa la iskugu gudbi karaa same gamete ayay ku gudbaan.
sawirka kore wuxuu ku tusaya ku laaban doonaa if gene QRT la yiraahdo link ay isku xiraan then the three pair of genes accommodated by homogeneous pair waxay sameynayaan wax isku xiran halkana hadiiba mar saxkii isku xiran yahay inta PQR waxay sameynaysaa gamete kale oo ku mid ah chromosome lagu magacaabo QRT the same waa link QQ ku xirmay tudkas segregation mayos markuu dhaco jawaabta same gamete soo baxay wax difference oo dhan ma jirto macnaha variation is kama dhaco waa linkage hadda ku sax hadda waxaan qaadanaynaa sex link lab iyo dhadig maxay xambaaraan oo go'aamiya all genes ka dhamaan jira sex chromosome marka soo qaadano genes ku yaala ama waxay xambaaraan sex chromosome waxaan dhihi karnaa sex linkage kuwa iskugu xira ama iskugu tiirsan ama isku gudbi kara isku gudbi sex therefore transmitted together with those of sex determine sex kuwa go'aamiya sexka lab iyo dhadig waxyaabo badan ay gudbiyaan humanka marka soo qaadano tusaale ahaan why the chromosome tabiic astaamo ay xambaarsan tahay jir astaamahaas dhammaan waxay ka turjumaan raganimo ama labnimo waxaa kamid ah premature baldness bidaar dhagaha oo tin ka soo baxo waxaa kamid ah sank oo tin ka soo baxo wixii lamid waxaa jirta sawiro dib ugu lahaa charterada kaska controlan ayadana X chromosome astaamo ay controlsha maamusha gooni ah waxaa kamid ah color blindness kalarada qaar oo la arkin hemophilia oo kalarka midabka oo isbedela afan blood clotting oo la waayo dabeecadahaas waxay ka soo muuqdaan ama lab ama dhadig markastana X ama Y ayaa kala xambaar mid koodan soo qaadana color blindness amoolnimada ama midabada qaar oo la arki waayo waa awood darro ku imaata in la kala saari waayo midabada qaar taasoo igu wacan tahay recessive chain la shiiqiye chain ahida oo X chromosome aanu qaadana let n capital waxaad u qaadataa normal color vision n small waxaad u qaadataa waxa loo yaqaan color blindness since gene-ka X in xabaar oo ku xiran labadaba sida daraaddeed normalku wuxuu noqon doonaa X oo n capital amaalnimaduna waxay noqon doontaa X oo n small saaranta intana keen marka aan isku karoosan tusaalahan haddii aabe amoole meeshan waa dhisayna mas'alada haddii aabe kalarada qaar aan arki karin ee amoole meeshaan inta kugu taagan tahay X ku bedelan oo guursado hooyo indhaydu ay caadi yihiin in isaar wajida haddaba sideeba u saameyn doonaa caruurta dhala doona ama kala sheeg caruurta macnaha habka ay kala yihiin waxa weyn maahan inta waxbaa naga maqan yar inta ku laaban doona sawirka meesha asalka keenay okay ila soco meeshan waxa ka dhigaysa waxa loo yaqaan meeshan y ka dhig meeshan y intaas y u taagan tahay ama aabe amoolaa duu guursado hooyo indheedu caadi yihiin kowa parental phenotype ayaa la yiraahdaa taas magaca aad sheegtay waa sifo muujis sifo tilmaamku wuxuu noqon doonaa X Y yaa xambaara X ta ayaa xambaarta abnormality geena la'aanta X tan oo normal gamete sameyno inta maxaa kusoo dhigay X ta oo xambaarsan amoolnimo intana Y saafi ah intana labada oo normal ah isku karoosan X tan gamete-ka ah ay jireen waxaan ay ku dhigi doontaa X taas normalka ah waxaa noo soo baxday X n small saaran tahay iyo X oo normal n capital saaran tahay X normal okay waxa ku soo baxadana salaayada qaadid waxaad ku dhigtaa X ta kale ku soo baxay isla sidaas y-da qaad inta ku dhig XY intana qaad inta ku dhig XY ku soo baxay inta markaa fiiriso amoolnimada carrier daughters gabdhuhu inay saameysay amoolnimadii ay ka dhaxleen habartood halka waxa loo yaqaano wiilashii ay saafi yihiin maxaanu ku yiri marka hore amoolnimada waxa xambaara X chromosome-ka waxayna u gudbi kartaa X ta kale ee gabdhaha halkaas
macnaha waxaan loo yaqaano k. aan u kala bedelno, aan isku sii koroosano inta iyo inta, labada tusaale isku sii koroosano. parental phenotype-ka man with normal color vision aabihiisu caadi yihiin, iyo woman with a normal color vision oo carrier ah, waa in iskala jaad ah, hooyo u qarsan tahay cudurka hooyo u qarsan tahay iyo aaba saafiya. kala fuji marka parental genotype-ka hidda-muujiskooda, hidda tilmaamkooda, phenotype-ka hidda tilmaamahooda waa kana inta kala qaad waxaa loo yaqaan. okay, waxaan sameyneynaa parentalki x iyo y gameedki sameyn kala qaad, intana samey kala qaad. waa kana x normal ah iyo y, intana x normal ah iyo n affected ah, x affected. okay, waan isku kororsan x-tan dhaqaaji, x-tan kusoo dheji offspring waa daughter with a normal color vision. haddana isla ayada qaab maxaa kusoo dheji, waxa weeye carrier daughter, gabar sifada u qarsanta, waa camoolnimo laakiin way u qarsanta, iyada camoolo maaha, way u qarsan tahay. haddii la kala dhaxlo ilmaha ay gudbi doontaa, ay dhasho ayay u gudbi doontaa. wayda qaad, wayda inta kusoo dheji son with a normal color vision, son with normal color vision, wiil indhihiisu caadi yihiin fiican. isla wayda qaad xt ku dheji xambaarsanay, soo baxay color blinson, wiil camoolnimo saafi ah, camoolnimo ku dhalana, indha la-aan ku dhashay. umalaynaa in hadda isla fahmi ya halkaas ayay macnaa waxaa la yiraahdo qaabka noo sharaxaysa. wuxuu kuleeyahay carrier daughterka from above parentiska marry normal man guursaday, their sonka will be suffer from color blindness, ilmahooda waxay halis ugu jiraan indha la-aan. halka daughteriskana can be either carrier ay noqon karaan oo homozygous normal color vision, waxay noqon karaan in indhooda caadi noqdo ama wax loo yaqaano inay qaadaan, labada way noqon karaan. meeshaan isku qaldin, yaa noo xambaara color blindness, x-ta xambaarta, x-ta yaa iska lahaa, aabihin wuu soo daaya x, laakiin waxaan dhahnay female-ka ayaa xambaarta camoolnimada. sidaa daraadeed waxaan soo qaadanay oo kugu soo celi doonaaye sifada aabo xambaara, sifada hooyada xambaarta, labadaba male and female-ka offspring way kasoo muuqan kartaa. inta muxuu nagu leeyahay marka, waxaa nagu leeyahay above example-ka kore chain of color blindness-ka wuxuu kasoo gudba hooyada, wuxuu usoo gudba caruurteeda. sidaa daraadeed taasna waa sababta only x chromosome oo male-ka ayay xambaarsantaha, oo y ma saarna, y-da ma saarna. aabihi y-da soo daayay x, y waa wiilkii, aabihi y-da soo daayay, hooyadan x-ta soo daysay, sifadii hooyada xambaarsan. sidaa daraadeed there are more, meesha si fiican fiiri, su-aal waa there are more male sufferers in population compared to females. camoolnimada waxaa ragga iyo dumarka waxaa ugu badan ee ka cabta waa ragga. femaleska only suffer when homozygous condition, sida tusaale hore usoo aragnaba, markay isku jaad yihiin aabihii hooyadii ayuu ka caban kartaa recessive gene. if x chromosome-ka ay carrier noqoto, sifadaas ay kala jaan noqoto ama carrier, sifada u qarsanato hooyada nololnimo u qarsan tahay, dareedkaas markasta wuxuu kasoo muuqan doonaa, wuxuu ku dhegi doontaa oo ka maqanya, wuxuu ka maqnaan doonaa aleelaha y chromosome. qaabkaas ayuu nagu doona iyadoo waa loo yaqaan. fahamilka dhan saana lagu sameeyaa. bad regan hal mar aan isla fiirino. bad regan color blind man, aabe indha la-aan ah ama indha kalarada qaar aan arki karin, iyo hooyo color normal vision yah ayay macnaa la kala qaad. afargeysku wuxuu kugu daagan yahay meel kasta aad ku aragto, circle wuxuu daagan yahay female. hadduu shadid yahay affected waaye, hadduu macnaha oo shadid ahayna not affected waaye. labadan markay isguursadeen waxa ay dhaleen waxaa loo yaqaan 1, 2, 3 iyo 4 dhalan ay dhaleen.
afartaa dhalaan ayay dhaleen warkaas si fiican fiiri afartaa dhalaan haddii half ay ka shaded garaysan yahay waa carrier keygaanana ambrayo male with color blindness labadan wiil oo waxay dhaleen normal color ah marka mujeeda okay waxay kale labadan gabdhoodna way dhaleen oo ah carrier female haddii waaridka labaad gabar ayay afartan dhalaanka offspring first generationka ay dhaleen ayaa gabar ka mid ah oo carrier ah nin islaameed guursatay oo macnaha normal ah ayagana afar caruur isku dhaleen ama second generation ay sameeyeen second generation maadaama maamadii carrier ay u gudbisay wiilashoodii fiiriya wiilka u gudbisay gabar carrier ah waa tii hadda aan soo maraynay tusaalaha kale waxay dhalashay gabar carrier ah iyo wiil oo indhoola ah iyo gabar saafi ah iyo wiil saafi ah ayay dhashay sii talaal qaabka artu isku sii talaal sii gudbi aabaan hadda oo kan ah oo indhoolaha ah iyo hadaarta waxaa isku sii talaasha hooyo u qarsan yahay ilmaha amoolnimo u bado doona battery ayaa la yihahdaa macnaha waa sii wadi kartaa shaxda macnaha habka loo sameeyo inaa qaacidada fahantaa muhiima haddii mar ay tahay wax loo yaqaano horizontalka waxay muujinaysaa connectedka marriage ka dhexeeya waxaa loo yaqaan verticalkan waxay muujinaysaa connected children ka dhexeeya waana kala bedeli kartaa bugaagtu qaar circlekay meelka u qaataan isku rectangle-kan waxay u qaataan ama fargeeskan waxay u qaataan waxaa loo yaqaano femaleka u qaataan waa kala bedeli kartaa laakiin mar kaste midka shadidka a dadka qaara normal uqaata midka shadidka aana affected dadka qaara uqaata markaa ku wareerin insha allah okay intaas waxay noo qaabkaasay color blindness uga baxanay buugga ku laabta kusoo sharaxa isla geli doonaa inta hemophiliada ayaan geli doonaa iyada okay hemophiliada wax kale maahan another sex linked waaye dareedka balaadkan wuxuu ka cabanayaa where a blood suffer from abnormal long term clot xinjirowga ka maqan dhiigga dhaqso ku xinjiroobeyn dhacdada markay dhacdo oo xididka oo dilaaco ama jarmo ama waxaa imaanaya dhiigbax zaa-ida sidaa daraadeed kan bleed arrest disease lagu magacaabaa cudurka dhiigbax hemophilia recessive chain waayo waxaana xambaaro X chromosome let H waxaa u qaadataa normalka blood clottingka ah H small waxaa u qaadataa hemophilia labadaba waxaa xambaara jiinka la yiraahdo X sidaa daraadeed qaabkan ku kala sheegaysa aan isku talaalno waxaan isku talaalnay normal man iyo normal woman afan waxaan isku talaaleynaa waxaa loo yaqaano color vision oo meesha soo geliyay marka cudur daarana halkan waxaan iskugu talaaleynaa waxaa loo yaqaano aabe colorkiisu uu yahay blood clotkiisu uu yahay normal hooyo blood clotkeedu uu yahay disorder ama carrier demujiska waa kana hejta ayaa xambaarta markasta kala fuji gamid samey h y iyo y loo kala fuji hejtaan qaad inta kusoo deji normal daughter ayaa noo soo baxday h capital isla hejtaan qaad hejta istanbul kusoo deji carrier daughter oo sifad u qarsanta ayaa noo soo baxay waayda qaad hejtaan ku deji normal son ayaa noo soo baxay waayda qaad inta ku deji hemophiliac son ayaa noo soo baxay wiil oo macnaha cudurka qaba waxay lamid tahay color blindnesska markastoo ay yihiin hetero wiilasha ayay saameynaysaa markastoo home ay yihiin gabdhaha ayay saameynaysaa qaabka caadiga ahaa anu laabano halkaa waxaa loo yaqaano iyo buuggii kana tusaale waaye masaladan iyadana qaado if hemophiliac a man married a carrier woman aabe waxaa loo yaqaano hemophiliac ah wuxuu guursada hooyo carrier ah use genetic cross to work out the product of above marriage. What probability the daughter will be hemophilia? boqolkiiba meeqa probability intee qiyaas disorder sare ragii dumarkii ku badan yahay sharx explain garay inta soo laabana halkaas waxaan uga baxno waxa loo yaqaano sex linkage waa noo imaan doonta abnormality marka noo mutationku waa isbedel ku yimaada qaab dhismeedka jiinka ama chromosome-ka labadaas
waa spontaneous change isbedel joogto ah haddana socdaha ku yimaada structure-ka gene-ka ama chromosome-ka. Two types oo leeyahay mutation-ka ah chromosomal mutation iyo gene mutation la yiraahdo. Gene mutation-ka mararka qaar point mutation la yiraahdo. Chromosomal mutation-ka waxaa sababa changes ku yimaada structure-ka ama number-ka chromosome-ka. waxaana ka dhacaan afartan qaab. Chromosomal deletion sinogu imaan doonta. Chromosomal mutation-ka waxaa loo yaqaano 5 types oo mara oo kuwan deletion oo ah removal of nucleotide base. nucleotide-ka aad taqaani DNA-ga in xabad kamid ah la remove gareeyo. Duplication oo ah is when a segment of chromosome represented twice as repeated inuu iskoobiyeeyo. iyo waxa loo yaqaan inversion oo ah occur when a portion of DNA breaks. qeybaha la jaraa waa la wareejiyaa xagal quman 90 ah 180 ah ka bacdina dib la isku xiraa. Translocation waxaa la occurs when a portion of homogeneous chromosome la jaro John another non-homogeneous mid kale ku jaad ahayn ama ay kala duwan ay mataame ah lagu dhajiyo. Non-destruction this is the link kind of chromosome abnormality ugu badan leads to the addition or loss of one or more. midka ugu badan ee abnormality-ga keena ayuu waaye wuxuuna ku imaadaa ku darid ama ka jarid whole chromosome number uu ku saaydo ama number ka dhimo. Chromosomal inversion qaabkan la yiraahdaa in silsilada dheerkeeda la jaro la wareejiyo xagal inta lagu sameeyo. sawirka ayaa ku sharaxay waxa loo yaqaan inta kugu qoran waa in la kadkareeyo macnaha insert la sameeyo inversion. Chromosomal translocation na boska in loo kala bedelo waa piece of ka bacdina boska loo gudbiyo. Not destruction ku sii dheeraad doona causes Down syndrome where there is a extra somatic chromosome number. waxyaabo badan oo sameeyay destruction waxaa kamid ah Down syndrome waxa la yiraahdaa taasoo ay ka wacan tahay extra somatic chromosome inuu imaado 21 ah. Sub-individualska shakhsiga noocaas waxaa imaan karta aragtida indhaha inay yaraato inuu difaaca jirkiisa hoos u dhaco mentally inuu deficient noqdo maskaxda yaraado carabka adkaado ama carab balaaran adag cardiac malfunction wadnihiisa si fiican shaqo waayo iyo short body oo macnaha jirkiisa asaga dhanba gaabta waxa loo yaqaan sida abnormality jirkiisa normal ah way keen. nooca labaad waxa la yiraahdaa Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome individualska qabo waxa lagu yaqaan extra sex chromosome kaas maxay extra somatic kana sex chromosome dheeraado half a total horta waxa la 40 meeshii ka jirta 47 dia cells sababtoo miska laga helo waxa waa meel isku ku badan yahay infertility ma dhaleysnimo kamid ah due to the lack of sperm production shaawo aan soo deey karin and development test xaniyaha oo macnaha aan korin reduce facial hair wajiga macnaha oo macnaha dib hoos u dhacayo koritaankiisa ama muuqaalkiisa ahaada ama xitaa timo mararka qaar ka soo baxa iyo unusual taller than average sida caadiga inuu ka dheeriyo sida calaamadaha obesity ina ka muuqato. Turner syndrome defects kala jiro oo not detection oo is a way individual select one sex chromosome ki hadda saayid oo kan waa naaqs hence they are 45 X O ama Y O ay noqon the cells instead of normal chromosome 46 kuno weynaya waxa syndrome-ka caan ku yahay female-iska waxaana astaamooda kamid ah koow naasi inuu soo bixi waayaan loo yaqaan dabeecada iyo wixii kamid tusaalaha kamid ah loo yaqaan infertility dhalmo la'aan taasoo ugu wacan tahay ovaries-ko la waayo ama ku yaraada ilma galeenka oo yaraada ama abuurmi waayo breast-iga naas oo soo bixi waayo iyo sida caadiga ah macnaha qofkii oo qof caadi ka gaabto. qaabka waxaan ku sharaxnay chromosome-ka waxa loo yaqaan gene chromosome ka dhaca iyo qaabka u saameeyaan waxa loo yaqaan afan chromosomal mutation waxa la yiraahdo qaabka u dhaco gaar ahaan detection-ka defects oo leeyahay. Gene mutation wuxuu ku lug leeyahay isbedelka structure-ka gene-ka hidaha. Gene mutation waxa lagu sheegaa point mutation magaca kale afar qayb oo leeyahay sagana sidii kii hore insertion ayuu uga duwan yahay substitution inversion iyo deletion waa isku wada mid. Deletion waa nucleic base in xabad la qaado. Insertion ka waa in la soo geliyo extra macnaha DNA-ga jira. Substitution waa bedel replacement one or more nucleotide in la bedelo mid kale loo bedelo. Inversion kan horaan ku soo marnaba waa portion kamid in la jabiyo la rotate gareeyo 180 dibna loogu soo celiyo. Disorder-iska chain-ka oo keeno gene mutation dhibaatooyinka ka dhaca ama oo keeno
chain mutation waa kumanaan way badan yihiin kuwa ugu caansan qaadana laba ka hadli maayo oo ka hadli maayo hemophilia iyo color blindness waxay kamid yihiin chain mutation kaan hal waxay kamid yihiin waxa loo yaqaano sex linked macnaha disorders waa soo marna sida la isku korosay nidaamkoodii waxaan arki doonaa albinismka iyo sex cellka ayaan aada ugu dheeraa doonaa anemiyada albinismka markaan aadano waa xaalad waa baraska dadka qaar ahaan waa kalarka midabkii uu samaysmi waayo waa xaalad weather synthesis of skin pigmentiga uu samaysmi waayo melaninti ayaa feelgaroobayso dabeecadahan waxaa kamid ah light skin maqaar khafiif ah tin macnaha cadaana iyo indhaho biginka noqda individualska noocaas ah ama aan ku aragno waxaan ku magacaabi karna waxaa loo yaqaan albinism albino ay qabaan aan isku karoosano normal color bimacnaha albinika madax banaan waa muujiska iyo hooyo macnaha afon meesha meel uu leeyahay waa hooyo ka dhig hooyo macnaha normal color vision ah no not possible the normal color saas ka laakiin labadu maxay noqonaysaa carrier labadu maxay noqonay carrier labadu waa carrier labadu waa carrier okay book inta markaa soo laabto wuxuu leeyahay wax loo yaqaano each or reaction kasta dhaca specific chain albinis waxaan leenahay designate a letter a aan qaadanaynaa is substituted by recessive chain waxaana lagu bedelaa a normal waaye substituted chain oo a small ah chainka marka in homogeneous conditionka a wuxuu balogareynaa one or two place in chainka reaction ka dhici lahaa sida daraadeed a normal a capitalna waa normal a smallna waa waxa loo yaqaano hemo albino maxaa isku kororseynaa marka haddii a capital a small taa labaduba waa laakiin labada normalka isticmaalaya labaduba waa normal oo carrier ah midna waa male midna waa female labadu meel ma noqon karaan da ayagu noqdaan nasiibkood laakiin meel wax kama dhalo genotype-kooda muxuu noqon doonaa waa a capital a small a capital markasta maxay kugu taagan tahay normal a small waxay kugu taagan tahay waxaa loo yaqaano infected gametka waa kana qaabka u samaysa gametka maxaa u sameyna qaabka ayaa u sameyn eedan haddaan qaadno eedan kale ku dhejino oo capitalka ah offspring koowaad cunug koowaad soo dhasha waa eeda maxay noo noqonay okay maxay noo noqonaysaa eedan waa dhalaankood haddana isla eedii qaada xagga ku dheji maxay noqonay eedan haddana labadan maxay noqdeen marka waa normal laakiin waxa eedan qaad eedan ku dheji haddana capital a small tanna eedan qaad eedan ku dheji okay soo qabo markii la sheegayo waa taqaanaa baarad phenotype-ka wuu xambaarsan yahay waa saafi iyo waa carrier waxaas dhan maaha wuu qabaa ma qabo saddexdan phenotype ahaan waa normal labadan maxay halkaana waa albino genotype laakiin haddaan sheegno waxa waaye ahaan waa kan oo normal saafi ah labadan oo barxan uu u qarsan yahay waa carrier u qarsan yahay iyo kan oo albino qaba umaleyna hadda inay ila fahantay maanaa waxaa loo yaqaano crosska isku talaal a normal a capital normal a smallna waxa u qaadataa effective-ka oo la bedelay substitute programka ugu dhaar lagu bedesho qaabkaasa isku karoosisa insha allah tusaalooyin kalaa jiro masalada aan tagno waa kana marriage between normal skin color man albino women kalarkiisu nadiif yaha hooyo albino qabato guursado all the childrenka had normal skin color yeelan doona use letters a approximate isticmaal is there the genotype of parents work of the genotype of the children what is explanation of the absence of albino channel in this marriage war hooyada way qabtaa aabina waa normal way isguursadeen mana ku dhicin waxa loo yaqaano ilmihii sharaxaad ka bixi sharaxaad u saar waa mas'alada single cellkiis abnormal red blood cell asagana waa abnormality xaalad ah oo ku imaata unugyada dhiigga casastaasoo macnaha crescent ay noqonayaan shapekiisa heer kale aad ku ogaa jirtay half bay noqonayaan abnormal for hemoglobin ayaana keenahay cause waxaa chain mutation ayaa sababa
through substitution inta lagu jiro normal hemoglobin type A ayaa waxaa lagu bedeshaa 2 polypeptide chains in sickle cell condition maado lagu magacaabo amino acid oo glutamic acid ayaa waxaa lagu bedelaa valine each polypeptide chain marka hemoglobin molecules ku isbedelo taasna waxaa ka dhalata hemoglobin known as hemoglobin loo yaqaano S. Nuuca normalka waa A, nuuca abnormality-ga samaysmana waa S, which is defective and has a marked difference from the normal one. Kii kaloo macnaha oo shib gareynaya single cell individuals has homogeneous gene which directly synthese hemoglobin type S. waxay leeyihiin kuwa isku jaad oo sameyn kara waxaa loo yaqaano S saameynaya anemia keena. waa kan asagana halkan buu noogu yaalaa wax loo yaqaano image halka ayuu noogu yaalaa isku koroosan crosska waa kana marka parental phenotype man with a single cell anemia trait ka sifadaas aabe xambaarsan oo qaba iyo women with a single cell anemia labaduba way qabaan macnaha oo waa hetero labadaba okay aan isku talaalno anaka HB gi aan soo qaadanay A markuu xambaarsan waa normal S markuu xambaarsan waa abnormality parental phenotype qaabka noqona kala qaad gaamidkan HBA waxaad ku soo dhijisaa HBA waa kana HBA waxa ku dhijisaa HBA kale halkaas waxa kugu soo baxan normal hemoglobin maadaama A labadan xambaarsan tahay phenotype-koodu waa normal okay HBS waxa ku qabataa HBA halka ku soo baxa HBS waxa ku soo qabataa HBA hadana halka ku soo baxa waa sickle cell trait way waxa loo yaqaan noolaha noocan qaba waxaa la yiraahdaa less serious condition sickle cell anemia hetero condition where half number of red blood cells are single shaped homa do ya bisway the rest of the cells can normal way efficient oxygen in hela kara individual shakhsiyaadka single cell anemia qaba waxay experience xaalad dhaxdhaxaad oo dhigiri ko taasoo normal life ah individuals kan qaba waxay la qabsan doonaan advantage suffering uga badbaadi karaa malaria attack inuu soo weeraro to those who are normal hemoglobin ay macna single cell kale waa la iska dhaxli karaa incomplete dominant ayaa la iska dhaxlaa waa loo yaqaan inta uu nagu sheegay sifada kor ku soo talaalna ama ku soo dhaxalna haddii macnaha waxa loo yaqaano meesha SA soo gasho waa single cell trait ay jirto waa esta abnormality haddii isku dhagaana waa normal caadi isku talaali kartaa mas'alada qofka sida rabto ku sameey kartaa isla mas'aladii oo hadda aan sheegin waa kana waa loo kala qaaday ayadii caadi loo kala qaaday oo macnaha tan normal hemoglobin waa labadii carrier ahana carrier ayaa la leeyahay kii caadiga u qabana waxa leeyahay wuu qabaa kii caadiga u qabana waxa la oo qaba ayaa leeyahay sifada macnaha qaabkaas hemophilia color blindness labadaba hore aan soo qeexay already be discussed marka casharka isla mawduuca korkiisa ka dheehan kartaa labadaba disorder ka dhaco waa loo yaqaan inta waxaan galeynaa effectska environment on heredity sidee baa dhaxaltooyada ama waxyaabaha la kala dhaxlo deegaanka u saameysa hore waxaan soo qaadanay bilowga casharka hadda chapteradii hore soo fiirsatay ama casharkan chapterkiisa casharadiisa hore chapterka soo fiirsatay heredity-ga laba saameyn ku leh inuu noqdo waxa loo yaqaan genetic factor iyo environmental factor genetic factor oo dhan kasta hadan environmental factor ay geliya the development of organisms depends on its genetic makeup oo ka samaysan genetic ama genotype iyo environment wakasa marka waxa la genetic factor iyo environmental factor interaction ka dhaxmaraya genotype iyo office organism iyo environment will modify the phenotype waxay soo saaraan muuqaalka nooluhu uu qaadanayo muuqaalka noolaha oo phenotype-ka hidamoojiska waxaa laga dhaxlaa environment-iga iyo genotype-ka oo waxa uu ka samaysan yahay waxa loo yaqaan nooluhu oo isla falgala the genotype of offspring may be tall if the environment could provide suitable condition min si fiican u soo muuqan doona haddii deegaanku saacido if there is not suitable hadduu ku saacidina si fiican u soo muuqanayo sifada animals plants labadaba genetic analytical individuals ku isku mid ka ah difference of environment kala duwan environment dunida kala duwan jooga iskuna mid ka ah
will be more different than those bred in same environment. geela isku midka ah ee Soomaalidu dhaqanto iyo geela caalamka waa geela ka sameeyay waa isku jeen waa isku waxaasoo dhan way kala duwan yihiin hadday deegaanku kala duwan yihiin bal fiir noolaha aadanaha hadduu deegaanku kala duwan yahay wuu kala duwan yahay hadduu deegaanku isku mid yahay way yarta kala duwanaashooda importance-ga genetic study in la barano muhiimadda maxay noo leedahay importance-ga kow waa meel muhiim ah badanaa aan ku dhiirigeliyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed sababtoo jaamacadaha aan ka baranaa wax loo yaqaan ganacsi iyo siyaasad iyo computer iyo wax lamida wadan kasta wadan kale wuxuu ugu horeeyaa in la barto wax loo yaqaano cilmiga natural science kale biology chemistry physics math qaabka u barataad wadanka horumar ku gaarsiin kartaa wax soo saarka dalka biologically iyo chemistry labadaba waa laf dhabar weyn inaa barato genetic study jaamacadaha hadda dalka ka raadi ma jiraan sababtoo waxa loo baahan yahay practical wax shaqeeyeen laakiin waa rajaynayna inay imaado qofka laakiin dalka barana waxyaaba kale iska barta laakiin qofka dibadda aadaay oo MBA soo barta ka waran adoo dibadda aadaay sheefo ma hada wax taray dalka ugu soo laaban kartid oo wax dheef la soo baro MBA waa fiicanta ma ayna laakiin maadaama wadan practical ka heli karto aadi karto waxa soo barataa maado wadankaadii aan lagu baran baahina looga qabo oo wax soo saar genetic counseling waa maadada dhan la barto which provides information and advice genetic inherited disorderada ka soo hadalno dhan ay tala baxin siisaa specialist ka barta knowledge medical genetic ayaa lagu magacaabaa waa xaliye genetic engineer waa maadada dhan la barto deal identification desirable gene hidaha la damacsan nuuc uu yahay altering in la bedelo isolate in karantiilo iyo in la gudbiyo noola kale loo gudbiyo dhammaan ayaa lagu bartaa sidoo kale genetic engineering waa soo saarka warshada waa soo saarka waxyaabaha nolosha badbaadiya life saving substances yaa kamida waxa kamid wax loo yaqaan hormoonaadka insulinta hadda dadka badbaadiya sokorta qabo somatropin antibiotics ka kamid dhamaan iyo talaalada vitaminaadka farming genetic materialska organism gala waxay bedeshaa la bedelaa si loo helo tayada loo baahnaa ay la damacsanahay waqti gaaban beeraad beeranaysaa geed baarta haddaad taqaano beertaad waxaad soo saari kartaa yaanyada markaad isku talaasho laba yaanyo oo kala duwan yaanyo aan hore Soomaali ugu jirin soo saari kartaa beertaada xoolaha dhaqataa waxaad soo saari kartaa haddaad barato genetic ama aad taqaan cilmi ahaan oo fikradu ka dhaadhacsan tahay maadaama uu ku joogo wax loo yaqaano tusaale loo ku joogo loodaada caaniyari hayso meel sameeyo Soomaalidu waa si natural u haystaan looda maadaama caaniyari qof qaraabada ama waxaad maqasho qof loodiisa caanaha aad u badan dibiga loodaas u booda marka soo qaadataan loodaadu macnaha u boodaya ka bacdina waxa waaye sida hadda genetic usoo barnay isku gudbi doonaan abi iyo laba dhadigii ka bacdina loodii inay caano fiican hilib fiican ku yeelo waa farming beerahan way giraysaa dirteen way giray short term waqti yar normal crossing waxaana kamid genetic modified maize iyo soybean maize kaleydo la bedelo iyo soybean kale daawada various hormones lagu soo sameeyaa daawada genetically modified organism steroid ka tusaale E. coli marka soo qaadana oo lagu magacaabo Escherichia coli has been synthesized to human insulin waa bacteria like waxa lagu sameeyaa insulinta aadanaha iyadoo pure large quantities human somatropin hormone kala dhaca waxa lagu daaweeyaa dawaafisinka qofka macnaha dawaafis ku dhacdo waa shaqsanaan macnaha inuu koritaankiisa abnormality u yahay genetic modified E. coli medicinal protein milk medicine kala qaybinayna caanaha loo soo saaray protein ka caanaha oo sameey karta sheep have been genetically modified to produce milk waxa loo yaqaan idaha ayaa caanaha dib looga soo sameeyay medicinal protein kaasoo hemophilia iyo eczema labadaba neefta iyo daawo waxa loo yaqaan hemophilia si daawo ugu tahay jinka oo blood clotting factor ka ayaa waxa loo gudbiyo waxa loo yaqaan waxa lagu duraa lax riman interaction la sameeysa production milk soo saar markay dhasho babyga oo meelka ay dhasho babygaas offspring oo tarmo carruurta u dhali doona aanay soo saarayaan waxa loo yaqaan blood clotting factor ka kooban inhibitory eczema kana iftiqaab kala iska dhaco waa presence of inhibited activity waxa maqan macnaha enzyme inhibit gareylaha state gareylaha lungs
elastic enzyme-ka wuxuu ku qasbay elastic tissue lungs ka bacdan isku dhacaya isqabsanaya alveoli basic functional unit ah normal person-ka activity-ga enzyme-ka elastic inhibited protein kala lagu magacaabo alpha antitrypsin normal circulating blood laga helo enzyme marka hadii laga waayo enzyme-ka noocaas proteinkaas noocaas hadii laga waayo AAT producer milk laga soo saaro imara siman blood clot amal laga soo saaro production of vaccine qodob ku xig talaalna soo saaro the production of vaccine ka hepatitis B virus oo qatar the chink of protein count ka hepatitis B virus ayaa la isolate gareeyaa hepatitis B gas virus ka la qaadaa protein code kiisa waa la isolate gareeyaa waa la karantiila transferred into fungus loo bedela yeast yeast culture lagu sameeyaa la beera ka bacda protein lagu sameeyaa protein ka lagu durayaa when this protein injected in your body marka lagu duro wuxuu la falgala antigen wuxuuna cariya production antibody la soo saaro hepatitis way isbaranayaan ka bacdina waa cudurku kugu soo weeraro kugu dhacay chain therapy waa replacement of faculty of gene normal ones normal or abnormality in la bedelaba correcting genetic disorder wala saxa somatical chain therapy genetically modified organism kala bedela virus ka kamid use to carry normal chain ka loo qaada la baro infected tissue cell crime detection faldambiyada iyo qaabka loo soo saaro scanning crime specimen dhacdada meesha ka dhacday macna dambi ka dhacay oo looga shakisan yahay waxa laga soo qaadaa tin dhiig iyo samiin oo shaawada biyo ah wixii la mid ah gaar ahaan rapid marka kufsiga DNA ga la baaro extracted from the different hair and blood kuwaas wixii dhacaan ama aad soo qaaday waxa laga helaa la baaraa ka bacdina la soo saaro shakhsiga laha plant animal breeding of a tame human being have been breeding plant animals muddo badan ay waxa waa breeding ku sameeyaan animals balance si selectively ay kala dooranayaan tayada u baahan yihiin taasoo wax dabiici ah this process waxa lagu magacaabaa artificial selection waa either by inbreeding or crossing lagu sameeyo halkaas waxaa noogu dhamaa chapterka genetics-ka chapterka casharka uu ku jira YouTube-ka anoo macnaha ku duubay waxa loo yaqaan online ku duubay laakiin ardada ka cabato dib aan ugu soo gashay insha Allah dhamaan chapterka su'aalaha ku jira waa kuwa oo waxba laga tagay explain briefly adaa sharax doona kalbe su'aalaha ka shaqeey isku day midna ka tagin qasab waxa su'aalaha saddex ka shaqeyso inaad chapterka si fiican u fahanto chapterka saddex video oo soo saarnay video 1 iyo video 2 iyo video 3 kan marka laba jeer ku jiri doona marna asagoo online ah oo lagu duubo online ahaan live lagu duubo iyo mar asagoo aan soo gelina laatay saddex su'aalo aragtay toos solve problemka ku sheeg xaliyan ku yiri dhiigga marka sharaxay soo qaatay kan hemophilia marka sharaxay kan marriage kalarka maqaarka marka sharaxay soo qaatay kan waa blister asagana waa nor waxa waaye human being ka ability waxay leeyahay carabka ay ku wareejiyaan waxayna ku xirantahay presency-ga oo dominant chain haddaba dhis waxa loo yaqaan shaxda adoo muujinayo genotype-ka hidda-muujiska iyo hidda-tilmaamaha parental genotype-ka F generation-ka gamete-ka cross garay isku cross between homozygous tango roller iyo homozygous non roller kan waxa maadaama aad isticmaalahay hepatitis iyo research-ka predict ka sameey result-ka soo bixi doonto cross soo socdo waa atar dheer oo geed ah oo dominant ah ayaa waxa ku talaalay variety with a dwarf mid self offspring virgin from the cross wixii soo baxay isku sii talaal wixii eekaaga soo baxa haddana original dwarfka ku talaal oo malayna in halka soo saari karto numberka waxa waaye atar dheer oo dheer ah waxa ku talaalay atar gaaban hadda which half of them dheer noqon doona half kana dwarf noqon doona genotype ka parent-ga shay experiment ay la sameeyay gaar bi atar dheer lagu sameeyay smooth seed code with cross oo lagu talaalay macnaha waxa loo yaqaan ringlet seed code dhamaan waxay noqonaysaa obtain F1 generation had smooth seed code in laga helo haddaba F1 generation self dib isku sii talaal the total number of F1 generation intaan soo bixi doona maxaa lagu diray approached later sample horta isticmaal genotype F1 generation from information core work of the following F2 alaga rabo meesha afan F2 ka shaqeeyo waxa loo yaqaan genotype ratio alaga rabo saamigal the total number of ringlet series ayaa lagaga baahan
total numberka sidee lagu soo saara taan aan ku yara iftiimiy total numberka horta maxaa haysataa inta total numberka oo dhammaana haysataa markaad soo shaqeyso ringletkaa lagu weydiiyey okay waxaana la weydiiyey seed codeka ringlet codeka all seeds obtained for f1 generation had a smooth seed code f generation was selfie the total numberka oo f1 generation was intaan u ahaa ringletka meeqoo noqon doonaa marka ringletka meeqoo noqon doonaa totalka oo waxaa sameynaysa waxa loo yaqaan loo qeybiyey waxaa leedaha one meeqa ringlet lagu weydiiyey total numberka oo ringletka lagu weydiiyey good ringletka genotypekooda meeqa kusoo baxa wixii kusoo baxay waxaa kusoo bixi doona 3/4 ama 1/4 iyo wixii lamid ah numberkan totalka ku dhuf kabacdina as a fraction laga shaqeeyo numberka kusoo baxaa la yirahdo markaas ringlet seedka totalkooda phenotype ratio-na soo hel waxaad dhistaa waxaa loo yaqaan possible sifomojska kasoo ifbaxaya haddii isguursadaan hooyo nooca dhiigoodu yahay a iyo aba nooca dhiigsu yahay b labada waaridba waa kala jaad lamaanaha isguursada color fissionkooda macnaha oo lamaane ayaa isguursada normal color fission waxay dhaleen wiil oo macnaha cali lagu magacaabo oo indhoola ah iyo laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Ethan iyo Grace cali wuu guursaday cali with a normal color fission wuu guursaday wuxuuna dhalay gabar oo indha caadi indhaheedu macnaha caafimaad qabta Ethan ayaa guursatay laba wiil ee dhashay mid kamid ah waa amoolo mid kamid ahna waa indhihiisu waa caadi what's the probable genotype of parents macnaha muxuu noqon doonaa sifa tilmaamahooda dear children kood muxuu noqon doonaa dear grandchildren-kana muxuu noqon doonaa ilmaha ay awowaha u yihiin explain how you are arrived at your conclusion gabagabadaada sharax bad degree isticmaal bad degree waa taqaanaa isticmaal meelka waxaa u isticmaasha waxaa loo yaqaano square female-kana circle u isticmaal hadduu macnaha waxaa loo yaqaano labadaba normal waa labada normal markay yihiin iyo iska dhaleen laba gabdhood oo normal ah aada xariiqaysaa iyo wiil camoola cale camoola gabar normal u guuri hadhasho gabadha normalkaana nin qaba u guuri oo nin oo macnaha effected ah ilmaha markaasaa u kala shay umalayna inaa fahamta masalada 10 straight head dominant is a calf head tinta toosan ayaa waxay dominant shiqiyo ku tin macnaha laalaaban banad square isticmaal labadaba header oo isticmaal kala jaad ahaan parental genotype sheeg parental phenotype kana sheeg ratio-ga sheeg macnaha offspring inta waxa weeye su-aalahan u dambeeya hadda sharaxa saddexdan labadan xabo waa hybrid kadan hal mar ku muujina insha Allah book Soomaaliya ku kaaga sharaxa ka bacdina waxa adaa sir raaci doona haddii red green color blindness-ka oo aleelaha x oo xambaarsan yahay aabe indhihiisu macnaha color blind ah oo la jameeco hooyo color blindkeed ayadana non color blind ah oo haddana header ah u qarsan tahay haddaba expected ratio-ga muxuu yahay genotype iyo phenotype offspring soo bixi doona muxuu yahay mas'aladan marka labadan su-aalood hadda waxaan ku geedi doonaa kugu sharxi doonaa wax yar oo concept waxaan kaa sii doonaa hybrid buugga muqarrarkiina ma qoraayo oo dowladda laakiin hybrid inuu qofku fahmo aad muhiim u tahay anoo cross gareynayo dhammaan sabuurad insha Allah isticmaalayna soo bulshada u jecla waxaa loo yaqaano 7 secret of success oo ka dhaxaylo yiro qolkayga adi akhriso kana wax kasta aad rabto waxaa iska dhigtaa dhagoolka end is not end markastaan soo qaadan effort never die chapterka duu dhamaaday noloshaad ma dhamaan dadaalkaadu ma dhamaanin markasta dadaalkaada si laba laab insha Allah maqsuud gabagabina cilmi alxamdulillah waxaan maamin iga baraarujina waxa loo yaqaano tuso inaad journalistkan markasta blogyadan iyo journalist kala socoto haddaad rabto cashirka toos inaad maadada u barato biology ugu dhamaado waan ku hambalayna dadaalkiina iyo juhdigiina aad ku barateen iyo dhiirigelinta aad siiseen laakiin waxaan bilaabi doonaa maadooyin advanced ah healacademy.talentlms.com ayaad kala socon kartaa insha Allah wixii faahfaahin dheer aad u baahantahay ama wixii kale oo kuunu baahantay gmailka igu soo dir fariin ama numberka contact caadi iga soo wac insha Allah hal mar waxaan kuu soo
waxaan kusoo gabagabeynayna insha allah si aad ballantkaaga talaalka laba barxan ama dhaa hybrid crosska lamaan ama qindi kastaba oo isku egyihiin waa la yidhi hase yeeshee waa kala shaqo marka minguuriskoodii wixii lamid ah ka gudub marka xigto waxaa la yidhi chromosomeska iyo numberska qaabka u sameynaya medal wuxuu darsay qindi astaan cadar oo quseeya midabada iniinta iyo waxyaaba badan guduudka iniinta midabka ubaxa iyo wixii lamida dhaa hybrid cross aa lahaa in laisku baxo gudub wuxuu noo sheega waaye tusaale hal tusaalaan kaaga qaadaya inta okay waxaan leenahay aan hadda isku dayno inaanu sameyno waxa loo yaqaano ka shaqeyno su-aashii ama weydiintii lafteedii aqoon hore waa u lahan hurdiga shirqiyo dooga okay dhib ma lahan waxaana la yidhi anaga nala weydiiyey mas'alada nala weydiiyey aan soo yaro bixiyo raalli ahaada iska daa inta mas'aladan sheegayo okay waxaan isku talaaleynaa sifadan ayaan isku talaaleynaa waxaan leenahay waaridka koowaad waa laba astaan marka gaameedku samaysan yahay hidaside kastaba wuxuu ku darsamaa hidaside kale oo astaan kale ah j waxay ku darsantaa c j small ana waxay ku darsantaa oo loo yaqaano c marka gaameedku aynu heli karno wuxuu noqonaya waxa weeye kow sifo loo yaqaan noocaan ah oo j ah sifadan iyo sifadan gaameedka markii kan hal ahaa laba oo ah kan laba keliya aha saana iskugu dhaji jirnay hadda maanta gaameedka see loo sameynaa that's good qaabkaana loo sameynaa marka si ficilgiis gaameedka qaabka u samaysmaayo jaydaana lagu dhajiya mujida laba jeer sameey hal cabag soo qaado waa isku mid jaydan ku dhaji jc jaydan kalena jayda kale ku dhaji maxay noqonaya jc labadaba okay tanna maxay noqon doon jc muxuu noqonaya markaa gaameedka hal iyo halan ka qaadana waa homoya heather markuu yahay waa arki doona waa kasii dhib badan waa inaan isku wada dhajinaa dhammaan hadda markaa dhahna gaameedka saa noogu samaysan yahay oo tan aan kasoo qaadanay j c aan isku dhajina tan aan kasoo qaadanay j c aan isku dhajina capital iyo small ah f one-ki sidoo u samaysmaa saan u samaysmaa f one-ki labadan isku cross labada j ku dhaji j capital j small c ku dhaji c capital c small marka la qoraayo gaameedka had iyo goor waa in wixii isku aleel ahi ama isu dhowri isku xigaan waa inay isxigsadaan markasta horaan soo ogeyn waa qalad inaad u qorto waxaa loo yaqaano j c g c ama c g c j marka la isku tu-iyo hawiyo dheh f one waxay noqon f one hadda ma soo baxa f one dib iskugu du-inayna warkaas si fican u dhegeyso f one aan dib iskugu du-inayna tan maxay noqonaya marka waaridka labaad gaameedyo 4 sifood buu waalidku hido sidayaashu isu raacaya كفائد فورمولا ذالي وانا افا انتو كجوجتا ترادا هيدسيدياشا اسكو ليدكا هيدسيدياشا امينكا والدكا waa labo marka hore waxay noqonaa n2 so n2 waxay sameynaysaa nt number waalidku waa number laba Soomaan ku bedelo foo gaameed buu waalidku yeeshay afar gaameed laga rabaa inuu yeesho waalid hadda waa kana kala jaad waa qaabka gaameedka loo sameeyo gaameedkan qaabka loo sameeyo hal ku jiraan fi jeedaas capitalka oo soo raray jeeda capitalka oo soo raray ujeeda ma ku dhicini seed intaan gaameed oo sameeyay intaan gaameed separate waa jeedan capitalka soo raray seed capitalka ku dhici jayda capitalka rasiid small ku dhaji ujeeda jayda waa dhammaan jay capital inta way ka dhamaan jay small r c capital ku dhaji waa kan jay small r c small ku dhaji afartaana waxaan sameeynaa for gaameed okay
waaridkaas aabihii bisa maxaan u sameynaa four gamid, hooyadii bisna maxaan usoo sameyneynaa four gamid. jeedaan sidii waa jeedaan rar sida ku dhaji, jeeda kalena sida ku dhaji khalaas. hadda marka waxa aad sameysaa Punnett square gamid walba dhinac mari 16 tafiir ahay soo baxan 4 ayaa soo baxayso loo yaqaan. waa kan in isku korosal wujida meel female-kii afarteeda inta gelin, male-kiina xagga gelin, hadda isku dhigay marka loo yaqaan J C oo capital J C ku dhaj labadan isku cross wujida tan qaad hadana tan ku dhaj isxiji J hadana tan qaad tan ku dhaj hadana tan qaad lambarkan oo J sawirkaas oo meelka ah afartan ku dhamay, tanna afart ku dhamay, tanna afart ku dhamay aan turjun tamay ilaa ka tirsan karta dul marid hidda tilmaamayaasha soo baxay waxay yihiin kuwa hoos ku ka muujisan isla marka hidda muujisyaashoodu waxay ku muujisan yihiin 16 tafiir oo soo baxay. waa kana marka shaxdana la sameeyaa marka garooska soo sameysid hidda tilmaame tirada numberka hidda muujiyaha waxa loo yaqaano iyo saamiga sifadii jeedan waa 1 hal mar soo laabad gooba weesan ay u taaganta hurdi jeedan laba mar soo laabad gooba weesan hurdi inta waa isku mid capital C ka afiria kan muxuu yahay isku chat gooba weesan kan muxuu yahay kala chat kana qaabkaas kala duwan laakiin isku wada sifa baar markay muujiska laga hadlayo phenotype isku caadi ida tilmaamkooda aad u sheegay qaabkaas loo soo saaray shaqadu muxuu noqon doonaa saamigoodana waa intaas. haddaba F2-ga go-aanku wuxuu ahaanaya 9 loo qeybiyo 16 gooba beesan hurdi ah, 3 loo qeybiyo 16 jacdad hurdi ah waa tirinay xagga ka soo tirinay, iyo 1 loo qeybiyo 6 jacdad san cagaar ah. qaabkaas waaye marka duu lahayd dibna ka soo gali doona anoo sharaxa insha Allah aan ku laabano halkaas waxaan ku dhameeyno waxa loo yaqaano boogini genetic aha waxyaabahan oo farming iyo sawirada u qaadanaya hadalka tirada badan waxyaabaas waa soo koobay mas'alooyinka boog oo bixinaya badanana temperature afan chapter kala u gudbay mas'alooyinkan ama access oo bixinaya boogina hadaada heenin waa kana oo ana waxa ku soo qoray waa kana access-ka booga ugu dambeeyay genetica dowladeedna qaabkaas oo dhici doona marka waxaan leeyahay guuleysta insha Allah imtixaankii 17kii 18 saddex imtixaan dowladda qaadayso horena insha Allah ayuu ka shaqeysan aan soo wada waxaan kala xiriiri kartaa ka heli kartaa inaad contact ila soo sameyso aad ku heli kartaa insha Allah gaar ahaan website-ka inaad booqato iska diiwaan geliso arday iska diiwaan geliso free ah ayaan ku sii doonaa macnaha insha Allah dowladeedna waa Ustaad Mahad Maxamuud oo ina leh Soomaaliya meel kasta aad joogtiin nabadi barwaaqo waxaad kala socotaa channelka Bare Emirates iyo Hill Academy online. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.